hore waxaan kusoo qaadanay tusaalaan casharka ugu dambeeyay oo kale waxaan kusoo qaadanay subplot sida 3D plot loo sameeyo leveling plot iyo wixii lamid ah casharkii kasii horreeyay waxaan kusoo qaadanay sida eh, loo save gareeyo daatada iyo waxyaabahaas marka casharkan wuu ka duwan yahay MATLAB-kuna waa course aad u ballaaran marka waxaan rabnaa insha allah inaan ku koofar-gareeyo meelaha muhiimka ah marka soundwave-ka oo kaleeto waxa jira wax la yidhaahdo soundigu marka waa codka dadka inta badan filligan electricalka iyo ardayda barata inta badan soundi wave electrical wave waxyaabahaas aad bay u arkaan marka waxaan rabaa insha allah casharkan inaan ku baranno sidee inagoo isticmaalayna MATLAB-ka aynu cod intaynu duubno codka uga dhex maqalnaa MATLAB-ka sidoo kaleeto sidee baynu u arki karnaa signal wave-ka codka inagoo isticmaalayna MATLAB-ka marka casharkan aan ku baranaynaa insha allah hadduu alla yidhaahdo guud ahaan audio sida looga dhex akhriyo MATLAB-ka loogana maqlo signalkana qaabka looga arki karo kadibna waxaan sameynaynaa inaan plotting samayno aan sawirno signalka noocu yahay iyo qaabku soo baxayno oo isticmaalayna bar plot histogramka iyo waxyaabana lamid ah okay marka koowaad waxaan tegayaa oo aan soo furanayaa MATLAB-ka MATLAB-kan isticmaalayo waa 2023 oo academic use jaamacaddeedaan waxa weeye maaragtay ka helay haddaad iibsanayso aad awoodin aad iibsato waa very expensive xooga marka haddaad arday tahay inta badan softwarekan waxaa ka helaysaa jaamacaddaada ayaa kaa saacidaysa marka latest version baa isticmaalaya insha allah waxaan rajeynaya inaan isku mid ahaan hadda wax ii furan haba yaraatee ma jirto command window waa clear wax data ama file ay ii furan haba yaraatee ma jirto marka casharkan file cusub baan u samaynayaa oo practice ah fileka waxaa ula baxaynaa soundwave practice okay waa soo furanayaa marka filekan aan samaystay computerkayga meeshuu kaga save garaysan yahay waa folderka kadibna wuxuu kaga sii jiraa training workshop and courses wuxuu kaga sii jiraa MATLAB course kadibna uu folderkan kusii dhex jiraa folderkan la yidhaahdo training code marka waa inaad sida ay ula socotaan marka fileka aan sameeyey oo abuurayna waxa la yidhahdaa soundwave marka intaanan soundwave iyo waxyaabahaas aan maaragtay aan samayn aynu wax yar aan dul maro soundwave-ku waa maxay soundigu waa maxay waa wave of air particles waa wave ka mid ah ama waa wave ka mid ah walxaha hawada way badan yihiin sida electromagnetic wave waxyaabahaas oo dhan baa ka mid ah marka soundigu wafafkaasuu ka mid yahay marka aan ka hadlayno wax la yidhaahdo wave laba qaybood baynu u kala qaadi karnaa ugu muhiimsan wax la yidhaahdo transverse wave iyo wax la yidhaahdo longitudinal wave google-ka haddaan ka baarno okay haddaan halkan ka baaro transverse wave-ku qaabku u egyahay halkan ka aragno insha allah hadduu la yidhaahdo yes okay transverse wave-ku signalka nooca longitudinal wave-kuna isaguna waan arki doonaa insha allah video yarna waa idinka tusaya hadduu la yidhaahdo markaan ka hadlayno soundigu sida saxda ah markuu travel garaynayo wuxuu u travel gareeyaa
longitudinal wave. Okay, longitudinal wave. sida saxda markaan aan ka hadlayno soundigu ama codku qaabku u socdo waa longitudinal wave baa la yidhahda. laakiin markii uu codka uu marayo systemka ama computerka ama mobileka wuxuu ku marayaa signalka qaab la yidhaahdo transverse wave. marka haddii aan halkan idinka tuso longitudinal waveku waa signalka noocaana. marka videogan yarka ila fiiri. markii la bushgareeyo wada soconayaa qaybtan soo ma jeeda qaabkaas qaab longitudinal buu u soconayaa signal. markaan ka hadlayno transverse hadda marka transverse fiiri transversigu go up and down up and down up and down buu u soconayaa. kii hore wuxuu u soconayaa si toos oo horizontal ah kana qaab ka duwan oo vertical kor buu aadayaa hoos buu soo aadaya. markaan ka hadlayno soundiga sida saxda ah markii uu hawada caadiga marayo waveka qaabkan u socdaa oo waxa la yidhahda longitudinal wave. laakiin markii systemka uu dhex marayo computerka matlabka wuxuu dhan waxaynu signalka ku arki karnaa hab transverse wave ah. marka experimentiga aan samaynayno oo aan matlabka ka samaynayno wave wuxuu noqonayaa waa maxay transverse wave buu noqonayaa ma noqonayo longitudinal wave. marka intaanan waxba samayn waxaan rabaa marka koowaad inaan intaan code yar qoro kadibna aan soo ka akhriyo ama ka dhegaysto matlabka cod yar aan sameeyey. marka koowaad waa inaan cod duubo. okay codka waxaan isticmaali karnaa oo aan ku duubi karnaa websitekan online-ka ah. websitekan waxaa la yidhaahdaa online -voice-recorder.com. websiteka tag kadibna waxaa samaysaa cod ku duub. aniga hadda oo kaleetan ku practice garaynayay codkaanan duubay. codkan tusaale ahaan codkan wuxuu leeyahay hello world. codkana markaan ku duubay waa save garaynayaa. waxaan ku save garaynayaa halkan aan ku save garaynayaa failka aan waxa weye maaragtay matlabka iga furan folderka baan ku save garaynayaa my voice. waxa ula baxayaa my voice. okay matlabka markaan ku laabto halkan uu iisoo gelayaa my voice. waxaan ku save gareeyey folderkan aan dhex joogo training codeka waan ku dhex save gareeyey. marka waxaan rabaa codkan inaan matlabka aan ka dhex akriyo. okay marka sidee codkan uga maqli karaa ama aan uga akrin karaa ama sayska uu ka kooban yahay uga akrin karaa? waxaan samaynayaa waxaan leeyahay waxaan abuuranayaa variableka y ama variableka x waxaan ku kaysanayaa waxaan isticmaalayaa marka function la yiraahdo audio read. oo functionkan oo functionada kala duwan uu matlab ku siinayo. marka haddaan audio aan qoro horu iga soo saaraya. audio read waa function waxaa loo isticmaalaa in lagu akhriyo ama read audio file in aad ku akhriso file uu cod ka kooban yahay. marka inaga hadda filekan my voice waxa uu ka kooban yahay waa maxay cod. marka aan ku dhufto kadib waxaan samaynayaa waxaan soo gelinayaa codkii my voice horu iga soo qabanayaa codkii my voice. okay marka aan intaa idhaahdo haddaan rangareeyo wuxuu ii abuurayaa halkan x baa iga soo baxaysa waa maxay waa variableka x oo aan anigu abuuray. qaybtan workspaceku iga soo baxaya. marka halkan haddaan command windowga aan isticmaalo oo aan idhaahdo x wuxuu ka kooban yahay x wuxuu ka kooban yahay macluumaadkan oo dhan ama wuxuu siinayaa samplingki uu ka kooban yahay codka oo dhan. marka haddii aan dib ugu laabto waxaan leeyahay sizeka
variableka x muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay waa maxay codkan wuxuu ka kooban yahay 36,336 samples buu ka kooban yahay okay marka waxaan rabaa inaan codkan aan maqlo codkan markaan rabo inaan maqlo maxaan samaynayaa waxaan leeyahay soundigu xaggee ugu kaydsan yahay x okay waxaan filayaa codka inaan maqasheen codka xoogaa waxaa ku jira xoogaa shucaac baa ku jira marka dhib male waa ka saari doonaa shucaaca hadduu la yidhaahdo marka maxaan hadda isticmaalayaa waxaan fiirinaya waxaan rabaa inaan sawiro oo signalku qaabku noqonaya marka waxaan leeyahay plot x signalka marka codkan my voice codka signalkiisu qaabkan uu noqonaya soo ma jeed codka inta ugu horeysa waa low kor buu haddana markuu kor aado waa high codka si fiican baa loo maqlaya markuu yaraado codku sii yaraanayana hoos buu sii aadaya marka hadda matlabku wuxuu ii sahlayaa codkaygii inaan signal ahaan aan u arko qaabkuu noqonay waa plotinkii waaye marka hadda plotka ma isticmaali karaa bar chart let's check aan fiirino bar chart haddaad marka aad ka dhigto oo aad rabto inaad sawirka aragtana qaabkan oo kale uu kugu dhigayaa instagram waa ku check garan kartaa inaad check garaysaan baan rajeynaya insha allah sidoo kaleeto pie chart aad ku check garaysaan let's check pie chart okay wuu iga diidayaa okay marka codka waxaan rabnaa inaan codka yarayno see u yaraynayna marka aan check garayno degrees sound volume sound matlab okay okay marka casharka xiga insha allah waxaan ku baran doonaa wax la yidhaahdo reversing signal isagan aynu ku arki doono marka qaybtaasaan idinku tusaya insha allah hadduu la yidhaahdo